waddanka Zambia ayaa baasaboorkeena Soomaaliga aqoonsatay waan dabaaldegayay maabkayga waa ii diyaarsan yahay waa ka mobile kala wata ina aragto ma aqaan adna mobilka soo qaado maabkana soo diyaarso baasaboorka Soomaaliga soo diyaarso videoan love san maanta qof walba Soomaaliya joogna u share garay maanta oo kale liime celceliyo farxadeeda lama soo koobi karo run ahaantii markan taariikhda dheer Zambia aan soo aqristay hadda newskeeda aan ka soo baxay waxa ay cadaatay in waddanka Zambia iyo Soomaaliya ay lahaayeen xiriir dheer sababtoo ah warbaahinta Zambia ayaa soo qaadatay haddaba baasaboorkeena Soomaaliga oo ujeedaa qoladii Zambiyaanka ah oo la shaqeeyay safaaradda haystay ayaa la sawiran ninka madaxda magaciisa garamaya okay waxaa la markaa inaan la wadaago sidee lagu heli karaa fiisaha Zambia macalinka Daawud Shaakirjiis muqallas walbo Turkiga joogo wallahi waa ka maarmay waana ka maarmin doonaa tahriibkii oo la fududeeyay maanta iga bax kuma dhahay video love sar sida share garay qof walba Soomaali gaarsi aniga dadka love-kii sharka jecelmihi laakiin maanta oo kaleeto waa dabaaldegaya because baasaboorkayga aqoonsatay dawlad kamid ah Yurub sidee lagu tagi karaa dawladda Zambia ayaa sheegtay deeq waxbarasho ah inay Soomaalida ku siinayso kuwa Afrika jooga iyo caalamka meel walba ka joogaan haddaba si waxbarasho ayaa lagu imaan karaa dawladda waddanka la yiraahdo Zambia dalxiisna waa lagu imaan karaa caafimaadna waa lagu imaan karaa sidee lagu helayaa sida aad ku timaaday waddanka Turkiga iyo sida aad ku timaaday meesha hadda adiga aad ku sugan tahay ayaad u dalbanaysaa tusaale qofku wuxuu rabaa inuu Zambia tago wuxuu tagayaa safaaradda ama wuxuu tagayaa online-kiisa ayuu tagayaa mobilkiisa ayuu ka dalbanayaa waxa la siin doonaa warqad oo ah fiisa ah warqadaas electronic ahaan ah kadib markuu airport tago ayaa loogu dhufanaya okay Zambia iyo Jarmalka intee isku jirtaa tahriibkii la fududeeyay waan ka maarmi doonaa muqallas dambe oo Turkiga joogo tuug ah basta video love star okay maabkayga soo diyaarsaday maabku wuxuu ii sheegayaa Serbia iyo Hungary oo isku dhagan yihiin Serbia iyo Hungary to Austria iyo Jarmalka okay tahriibkii la fududeeyay waxaan ku leeyahay dadku ugu horeeyo noqo goorma ay bilaabanaysaa waxay bilaabanaysaa bisha 11aad kowdeeda wixii ka dambeeyay fiisaha waa dalban kartaa waxa kale dawladda ay sheegaysaa in xitaa qofka ticket oo goosani karo oo airportka looga dhufanaya Serbia hadda timaado wallahi Jarmal waa joogta wallahi Norway waa joogta dhaadhaad maana qoray waa dabaaldegayay